waxaan ka warrami doonaa fanaanada Shakira annagoo ka sheekayn doona oo kaliya dhinaca xiriiradii jacayl ee ay soo samaysay. Shakira waa fanaanad u dhalatay dalka Colombia ee dhaca Latin America ama Ameerikada Koonfureed. Aabaheed waa nin Kristan ah oo haystay madhabka Kaatooliga, magaciisuna ahaa Don William Mubarak. Waxa uu ku dhashay New York, waxaase uu ka soo jeeday dalka Carabeed ee Lubnaan. Dhinaca isirka aabaha waa ka Lubnaaniyeed Shakira, hooyadeedna waa Colombian. ayada kaliya ayayna u dhashay aabaheed. aan gudaad galno sheekada inta ina qusaysa marka. waxay ahayd fanaanad caan ah gaarsiisan heer xidignimo. waxay ahayd fanaanad heerkeedu sarreeyo, ahna fanaanada ugu caansan fanaaniinta dumarka ah. isaguna waxa uu ahaa wiil yar oo aysan da'diisu ka weynayn 10 sannadood oo kaliya. sidee ayay isku guursadeen? bal ila soco ilaa dhammaadka sheekadan. sidee ayuu ku awooday 13 sano kadib inuu jacayl ku abuuro? haddee 13 sano ka hor waxa uu ahaa 10 jir, muddadaas kadibna jacayl ayay u qaaday. sidee ayay sidaasi suurtagal ku noqotay? sheekadani waa mid la yaab badan. waa xiriir cajaa'ibtiisa watee. waa jacaylkii dhex maray fanaanada Shakira iyo laacibka kubadda cagta ee Gerard Piqué. dadku waxay u haysteen in ay ku nooshahay nolol farxad badan, waayo dee waa qof caan ah, lacag fara badan leh, malaayiin dollar akoonadeeda ku jiraan. balse lama aysan socon marnaba dhibkii iyo rafaadkii ay mar walba ku dadaali jirtay in ay ka qariso dadweynaha. Shakira waxay la dhibaatoonaysay xiriiradii jacayl ee ka fashilmay iyo nolosha qaraar ee aan xasiloonayn ee ay mar walba galayso. xiriir bay samaysaa iyada oo isla jannadii adduunka ayaad galaysaa, waxaad ku noolaan doontaa baraare iyo barwaaqo. mise waxa uu ku noqdaa xiriir qaab daran oo si foolxun ku dhammaada. xiriirkii ugu horreeyay ee ay ku dhibaatooto waxa uu ahaa jacaylkeedii ugu horreeyay ee ay la samaysay ninkii la oran jiray Gustavo, kaasoo isna ahaa fanaan. Shakira waqtigaas waxay ahayd gabar dhalinyaro ah oo aad u yar, markaas ayayna ku soo caanbaxaysay dhinaca fanka iyo heesaha. aad ayayna u jeclayd Gustavo. nasiib darro waxay ogaatay inuu khiyaamaynayo oo uu xiriir la leeyahay gabdho kale oo dhowr ah. kadibna xiriirkoodii way soo afmeertay markii ay la socotay muddo sanad ah oo kaliya. sida ay u badan yihiin dumarku, waa laga yaabaa in ay gabadhu dhib kasta kugu dulqaadato, balse dhinaca in lagula qaybsado waa yar tahay gabar ku qanacaysa oo masayrkii ayaaba isu rogay nacayb. xiriirka hore kadib sidoo kale waxay xiriir jacayl oo dhuuxu shubmayo la samaysay jilaal lagu magacaabo Rios. waa nin jilaa ah oo filimada iyo musalsalaadka jila. 2 sano markii ay wada socdeen ayay soo afmeertay xiriirkii iyadoon wax sabab ah bixinin. saxaafaddu way iska war badan tahayoo qoladii wariyaasha ahaa ayaa waxay sheegeen in sababta ay ninkan xiriirkiisa u soo gabagabaysay ay tahay in uu garaacay Shakira. waayo bay dhaheen qoladii warbaahintu, ninkan Rios horey baa maxkamad loo saaray iyadoo lagu tuhumayo in uu xaaskiisii hore ihaanaystay una gacan qaaday. marka waa suure ayay yiraahdeen in Shakira uu fal noocaas ah oo kale ah kula kacay. kadibna Shakira waxay ku dhacday jacayl kale oo ay u qaaday ninka la yiraahdo Antonio oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Argentina. waxayna ahayd xiriir jacaylkii ugu dheeraa ee ay samayso Shakira. waxayna wada joogeen muddo ka badan 11 sannadood. nasiib darro labadoodii waa kala boodeen iyada oo ay sabab u tahay khilaaf lacageed oo soo kala dhexgalay. hantida iyo lacagtu waa waxa ugu weyn ee aadanuhu isku khilaafo. qof kasta lacag buu raadinaya oo taasi wax ay iyagu ugu horreeyeen maahan. Antonio wuxuu go'aansaday inuu ka argoosto Shakira waayo iyada xiriirkii u goysay. waxaana uu ku soo ogay dacwo si uu uga helo lacag dhan $100 milyan taas oo uu ku sheegay in ay tahay muddo 10 sannadood ah oo uu iyada caawinayay, una ahaa looyarkeeda iyo wakiilkeeda dhinaca hantida. Shakira iyaduna waxay awooday in ay kaga guulaysato dacwadii, maxkamadduna waxay taageertay isdifaacideedii. sababahaas aan soo sheegnay ee xiriiradaas jacayl ee wada fashilka ku dhammaaday darteed, waxay Shakira weyday rajo dhinaca jacaylka ah. waxay gashay xaalad murug ah oo aan sahlanayn. waxay u malaysay inay weligeed ahaan doonto mid kaligeed ah. malaha Shakira waxaysan ku baraarugsanayn guurka iyo xiriirka ugu wanaagsan inuu yahay kan labada qof aysan isu guursan wax dan ah. waayo qofka danta lihi waxa uu kula joogayaa inta danta adiga ka soo gashay ay ka dhamaanayso. maalinta ay albaabka ka baxdana isaguna kasii dababaxayo. jacaylka dhabta ahi waa kan labada qof dan kasta iyo duruuf kasta oo kala dhex gashay aysan kala daadufayn ee waxaba ay kasii qaadaan kalsooni iyo adkaysi. balse ma aysan ogeyn in ay la kulmi doonto qofkii nolosheeda bedeli lahaa si kama dambays ah. sanadii 2010 waxaa loo doortay in ay noqoto fanaanada kaliya ee heesteeda sida rasmiga ah koobka adduunka loogu dooran doono. markaas ayay doontay in muuqaalka heestaas koobka adduunka loo doortay ay duubto. waxayna u kacday inay muuqaalka heesta ay kala soo muuqato qaar ka mid ah ciyaaryahanada kubadda cagta.
mid ka mid ah ciyaaryahanadaas ay muuqaalka ku duubayso waxa ka mid ahaa ciyaaryahanka reer Spain ee Gerard Piqué. Gerard markii uu sidaas u arkay Shakira qalbigiisa gantaal ku dhacay, yacni aad buu uga helay, wuxuuna go'aansaday inuu la soo sheekaysto. Shakira oo ka sheekeynaysa qaabkii ay isku barteen ayaa iyadoo qoslaysa waxay tiri waxa uu ahaa mid cabsi badan dareemaya oo khajilsan markii uu doonayay inuu aniga ila hadlo. Wuxuu i weydiiyey sidee u aragtaa jawiga. Gerard Piqué wuxuu ka codsaday inuu rajaynayo inuu mar kale la kulmo ayna ballamaan. markaas ayayna Shakira u sheegtay in ayba ka heli doonto xafladda ugu dambaysa ee koobka adduunka lagu khatimayo. Isna waxa uu sheegay inuu isku diyaarin doono inuu mar kale arko. Piqué waxa uu suurta gashay inuu kooxdiisii qaranka Jarmalka la soo gaaro cirib dambeedka ciyaarta qarankiisuna uu xaqiijiyo guusha koobka adduunka ee sanadaas. Markii koobka adduunku dhamaaday, Shakira waxay oofisay ballanteedii, ugu dambeynna waa kulmeen. si degdeg ah ayaa xiriirkoodii saaxiibtinimada uun ahaa isugu rogay xiriir jacayl oo misana romansi ah. sanadii 2011 ayaa Piqué iyo Shakira waxay u xaqiijiyeen dadweynaha caalamka in ay yihiin kuwa leh xiriir jacayl oo isu doonan. Bulshadii ayaa ay kadiso ku noqotay sababtoo ah daadooda ayaa waxa u dhaxeeya farqi weyn. waayo Shakira waxay 10 sano oo dhameystiran ka weyneed Piqué. Dadkii waxay ku dhaarteen in xiriirkani soo afjarmi doono sidii ay awalba ku dambeeyeen xiriiradii hore ee ay soo samaysay Shakira. Piqué hadalladaasi waxba kama soo qaadin, waxaana uu go'aansaday in uu hubanti iyo kalsooni jacayl oo weyn siiyo Shakira, kana saaro walwalka tusiyana jacaylka weyn ee uu hayo. sanadii 2013 waxay u dhashay wiilkoodii ugu horeeyay, wiilkoodii labaadna waxa uu dhashay sanadii 2015. sanadii 2017 waxay soo saartay hees ay ugu talagashay jacaylkeeda Piqué, waxayna heesta ku sheegtay in ay wax kasta u sameynayso si uu u waaro jacaylkoodu abad. waxay waraysi ay wada joogaan ku sheegtay iyadoo oo la hadlaysa isaga, markaan kula kulmay waxa aan khasaari karay baa iska yaraa, balse adaa noloshaydiiba bedelay. yacni awal waxay leedahay waxaan ahaa mid hadday wax khasaaraysaba ay waxay khasaartaba aan haysan, balse hadda wax walba adaa ii ah, haddaan ku waayana khasaare aan kasoo kabasho lahayn ayaan gelayaa. haddana Shakira waxay la nooshahay qoyskeeda iyaga oo ku nool nolol farxadeed, waxayna degan yihiin magaalada Barcelona ee dalkaasi Spain.